kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaara dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah jabhada lagu magacaabo oo weele ayaa boqolkiiba 90 waxa ay gacanta ku dhigtay deegaankan iraade oromada taasoo la tilmaamay inuu wax ka og yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxayna arintan wiiqaysaa la yiri gabi ahaanba midnimadii iyo wixii loo oran jiray dalka Itoobiya hadaba faalada laga qoray ee ay warbaahinta caalamiga iyo mid kale localka ay kaga hadashay ayaynu daawadayaal kaga hadli doonaa barnaamijkeena maxaad kala socotaa markabka Turkiga uu leeyahay ee Kinilaada F514 waxa uu socday iyo ujeedada ugu soo xidhay dalka Soomaaliya xaqiiqada ayaanu idinka haynaa waana ku maqli doontaan barnaamijkeena xisbiga EPP ee ka taliya dalka Itoobiya ayaa waxa uu shaaciyay in uu ku soo biiri doono xisbiga TPLF ee qowmiyadda Tigreega taasoo gabi ahaanba ay garafka u daruureen kooxda TPLF deegaanka Soomaalida waxaa ka socda abaabulo xoogan oo lagu ururinayo dhaqaale iyo waliba garab istaag iyo waliba moraal loo muujinayo ciidamada lagu magacaabo liyu booliska iyo maleeshiyaadka ka dagaalamaya galbeedka gobolkaasi City qodobbo kale oo ku saabsan dalka Itoobiya ayaa daawadayaal inoo raaci doona barnaamijkeena waxaana barnaamijka ila faaqidi doona alaaba ku sugan stuudiyaha saaxiibkay ninka inta badan ka faallooda xaaladaha dalka Itoobiya saaxiibkay Dr. Shidow bal hadii aynu ku bilowno dhankan TPLF waxay gaashaanka u daruurtay gabi ahaanba xaaladda ay EPP ku sheegtay ee ah in ma garanaysa hadii bay ku samogol yahay ay TPLF ku soo biirayso marka bal maxay arintaas aad iyo aad baad u mahadsantahay farogodow TPLF gaashaanka ay u daruurtay warbaahinta Itoobiya saacadii la soo dhaafay war ay timinayso oo ku sheegtay in xooga Tigraygu ay ku soo biiri doonaan xisbiga barwaaqo ila bariyahan qalqaala ku socotay qalqaala ku socotay bariyahan bade Abiy Ahmed nimankaasi si weyn ayuu maartay u xudxudanaya ama u shukaasanayay marka war wuxuu sii daayay uu leeyahay TPLF inta in ka badan banaanka ma sii joogi karto fagaarayaasha siyaasadda iyo maartay waxa looga hadlaya xaaladda guud ee dalka Itoobiya banaanka ma sii joogi karto ayaa warbaahinta Itoobiya lagu qoray mucaarad iyo muxaafidba TPLF markii jawaab ay ka soo bixisay waraaq wiifta ah oo ka soo baxday xarunta ee TPLF laga xukumo ayaa soo yeedho markii baraha bulshada lagu baahiyay waxaana lagu sheegay mid aan waxba ka jirin oo sad iyo raad toona lahayn TPLF inay ka facweyn tahay xisbiga barwaaqo oo ku sheegeen xisbiga barwaaqo inuu yahay ku hadda la yagleeray caga fiican aan ku taagnayn inuu yahay Tigrayguna ay yihiin intaasi ka facweyn kana tuweyn siyaasadooduna ay ka weynta ama ka balaaran tahay xisbiga barwaaqo marka hadalka Tigray dhawaan waxa jiray hadal ay Tigraygu sheegeen in dawladda Itoobiya propaganda wada xisbiga TPLF ay wado oo maartay hadalla aan laga fiirsanin in warbaahinta lagu qorayo oo ka dhanaha qowmiyadda Tigrayga iyo gabi ahaanba xisbigaasi sidii loo waxyeeleen lahaa iyo maartay jiritaankiisa meesha looga saari lahaa marka waxay ku cadeynaysaa hadalkan maadaama ay laba hadal kala duwan ku hadleen inuu xiriir fiican jirin ay ku cadeynaysaa TPLF iyo dawladdan inay aad u kala fog yihiin ayaa iyadana midaas ku cadeynaysa sababtoo TPLF iyo dawladda hadday isku meel wax u wadaan wixii ay dawladdu tabisay TPLF manage wax ka beeniseen waxa la isla ogeeyo la dhihi lahaa bay ahayd TPLF iyo dawladdu hadda way soo leedahay laakiin haddii TPLF ay ku sheegtay been iyo propaganda ku sheegtay waxa ku cadeynaysa inay dawladdu wali dagaal ku jirto TPLF lagu xumaynayo oo wali khilaaf labada u dhax yaalo xaaladooda aan mid aan fadhiin dagaalka Tigrayga ay ku jiraan mid iyo xiniyahooda iyo reer galbeedka garab siinayo dawladda Itoobiya lagu cadaadiyay in 2 bilood ay ku dhaqan galiso heshiiskii Pretoria marka Tigraygu waxa la dhihi karaa waa niman wali ay xiniyahooda nool yihiin ayaa la dhihi karaa wax iska celinayo oo jawaabna bixinaya ayaa la dhihi karaa Abiy Ahmedna waxa lagu macnayn karaa inuu hadda ku soo urursado kaliya propaganda laakiin Tigray qori laga hortagay iyo awood laga riixay deegaano inay dawladdu haynin nimankana inay gabi ahaanba dawladii ay gacanta ku dhigeen baa la dhigi karaa dhankii maartay habsami socodka dawladnimada waa gartay aan ku marto kuugu daro barnaamij waxaa jiray maalintii shalay shido magaalada Muqdisho dawladdu war been ayay faafisay warkaasi beenta wuxuu ahaa markab
ay leedahay dowladda Turkiga oo markab dagaal ah oo ma garanaysaa lagu magacaabo Kinalada F514 ayaa wuxuu ku soo xidhay tukada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dowladdu si kale dadka ugu fasirtay in dowladdu waa dowlad shacbiyeed raadinaysay dowladdu dadka hoota inay hanaato oo dadka jahayso oo dalka difaacdo annaga la jecel laakiin hadii ma tahay mid difaac ilahayd ee hawlahan heshiisiin intay gasho qumanayd ee dowlad quman ma tahay ma aha hadaba waxa la yiri markabkan wuxuu marayaa hadii baahay ku soo ogolyahay wadamo 22 dal ah ayuu horta booqasho ku tagi doonaa xagee u socdaa markabkani Japan horta hadda ku socdaa saldhigiisa ugu weyn ee xafladda weyn lagu qaban doono waa dalka Japan waxa la yiri dalka Japan madaxda Japan iyo madaxda Turkiga oo waxa la yiri xiriirkoodii oo 134 jirsaday baa la yiri waa 134 sano ayaa ka soo wareegtay baa xiriirkoodii hadaba halkaasi ayuu markabkani tagi doonaa markabka markuu tago halkaas ayaa ma garanaysaa dabaaldega iyo xiriirkooda sidoo soo wanaagsanaa Turkiga iyo qoladan kale loogu dabaaldegi hadaba markabkan wuxuu ka mid yahay baa la yiri ama Soomaaliya ka mid tahay baa la yiri 22 dal uu marayo waxaan ma baahan wax Soomaaliya gaar ah Soomaaliya markuu imanayo 4 dal oo kale soo maray oo Djibouti ay ku jirto Djibouti ay ku jirto ayuu soo maray sidoo kale Djibouti uu soo maray oo madaxda Djibouti ay u soo dhaweeyeen soo gartay ma Soomaaliyana sidoo kale ma garanaysa iyadoo u soo dhaweysay laakiin markabkani wax dawladda uu khaas leeyahay ma jiro oo Soomaaliya difaacayna iyo gantaalaan hawada u marinayna iyo badbayna waxaynayna iyo ciidan waxaas waa khuraafaad dawladda ay faafinayso waxba kama jiraan wax ka jira ma jirto villa Soomaaliya waxa la warkan ay sheegtay waxba kama jiraan waa warka rasmi ah mid kale markabku wuxuu leeyahay qayb iclaam uu leeyahay wax lagu daabaco oo maartay barnaamijyadiisa iyo waxyaabaha ma garanaysa uu socdo introduction-kiisa wixii soo dil baa lagu daabacayba marka horta waxaas ka soo qaadanayna ma haddana uu ka ambabaxaya magaalada Muqdisho oo wuxuu ku socda dhanka Japan ku socda wadamada uu ku sinagaan doono waxa laga yaabaa baa la Tanzania iyo wadamadaas iyo Kenya inuu sii maro markabku waa markab weyn oo diyaaradaha xambaara oo huba saaran oo adduunka idil baa yaamaartay markabka saaran marka propagandadii ay dawladdu faafinaysay wax allaala wax ka jirta ma jiro ma maqli jirtay beenu de lug la qabtay leedahay beentu sideedaba lug la qabtay leedahay marka dawladdu horta warkii ay sheegaysay waxba kama jiro waa laga daba yimid intaas waa intaas mid labaad waxa la yiri dawladda Xasan Sheekh hal waagi hore ku ceebowday waagi hore ku ceebowday doorkii hore waxyaabaha ku ceebowday waxa kamid ah la yiri mushaaraadkii dadka masaakiinta ay cuni jirtay dawladdii hore xilliga markuu hogaamin jiray wax alaal wixii mushaara saddex bilood bad waaysa hadda doorkan marka qayb ciidamada kamid oo imaaraadku bixin jireen iyo qayb mooyaane inta badan horta dawladdu mushaarka way bixisaa dawladda Soomaaliya bixisa وانت ايجابيga haysa way intaasina haday gabto hadii waaba haranbeeba ba lagu qaadiba laakiin waxa la yiri waxa la soo daabacay dawladii hore wax qabadkeeda waxa la yiri garoonka weyn stadium